intaa ka bacdi xafladani waxay ahayd ama qadada tani isbarasho iyo isa soo dhaweyn magaalada iyadoo aan cidna laga lahayn magaaladiina ay tahay haddana bal in la is arko oo la isbarto waxaana inoo fidiyey oo qada sharaftaan inoo fidiyey garaad Siciid Xaaji Cabdulle Faarax oo aan dareensanahay rag badan oo hadda aan u jeedo muddo aan fogeyn halkaan lagu caana shubay beertaan beerteeda kale oo xagga ah marka waxaan leenahay barasho wanaagsan soo dhawaada aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa ajiibida iyo ixtiraamka badan oo aad samayseen waxaan jecel lahay insha Allah warka muhiimadiisa inaan idinku soo wareejino ugu dameyntana garaadku uu ku duceeyo marka nin odayaa wuxuu yiri martiqaad ama qado waxaan ugu jecelahay markii aan soo fariisto hadii la yiraahdo faraxalo markaan wax qulbaabana la yiraahdo faraxalo oo waad mahadsan tahay nawaday laakiin wuxuu yiri hadii xoogaa war ka damayo warka la sii dheereeyo xoogaa baan ku biya karaa buu yiriyo baasha sana kama helo marka insha Allah waa la soo fududeynayaa warkuna ma tira badna oo ma badna waagii hore waxa de meelahan si ma aragtay qaab kale oo geed hoostiisa iyo baa la isku martiqaadi jiray waayadan dambe baa xoogaa maqaaxiyaha iyo xoogaa ma aragtay loo wareegay wax la yaqaan oo baa dadka lagu martiqaadi jiray hilbaha waa la kala yaqiino waxa la dhihi jiray 7 sare iyo 7 hoose iyo waka iyo magacyay kala lahayd laakiin waxaan isku bilqaxan baa la keenaa marka intaasna waa ka cudadaaranaynaa nidaamka iyo tadawurka iyo xilliga hadda ah baa sidaas ah wixii irir ku jiray waa ka cudadaaranaynaa marka waxaan jeclahay inaan soo wareejiyo oo ciidan kale oo reer ayeeyahayo meesha fadhida oo beeldaaje jaamac oo ma aragtay odaga u yahay wada ikhtiyaartiina waan garanayno ganacsato iyo odayaal iyo culimaa diin iyo nabadoono iyo siyaasiyiin iyo runtii media baan rabaa inaan ku soo dhaweeyo aad iyo aad baa u salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh garaadka horeeyo waa salaamaya horta waxaan u istaagaanu mahadnaq way wax meesha ka furi xagga qadadana jaweekanaaba wuxuu yahay wax kala mandar kale oo karaamada iyo hilibka macaan jaweekanaaba ka sii maartay suleynaya xagga caleema saarka hadii aanu ku yarayn caleema saar baad bitan weefta oo anaga halkaan nolo ku sameey hadii tan ay reerku ballan qaadeenna waa taminayna xaggaan ku sameyn doon midaan gaar u leenahay عليه وصحبه وسلم خيارته قرات سعيد عبد الله فارح وقاسك بلداجه يودياشا خيارته انا سوكو بكرنا ميشن فديدا دمانتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan ka mahad celinaynaa qadada wanaagsan iyo meesha tan kubtaayo wanaagsan oo hadeer meeshu sheegaya ninka la yiraahdo Khalifa Ali oo miyiga weeg oo sida tan weeg quruxda badan iyo qadada tan quruxda badan oo khiyaartu garaadku gaban meesha samaysay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa إن شاء الله قراتك وحن لنهاي قراتك إن شاء الله كل بانو وحويها ومدو نبو وحويها كي خير إنه هرسدبو إن شاء الله نغونا يا قراتكو يهور مر ونكسن أنا أقول هذا قراتكو واقع هذا كذا دي لي وانو كو يرينو مربان حقا جينينا تي على مسارك يقوى حقا
haddii ilaahayna gaarsiiyo aadna intiina kale raggana waa wad mahadcelinaynaa qadada wanaagsan iyo sharafta iyo sida maaragtay noo karaamayseena hadda ilaahay idin karaamayo baanu leenahay wixii haddii maaragtay nagu aadan waa khiyaarta iyo garaadka naga aadanna sabcan wadaacan baan leenahay waa soo dhaweynaynaa boqolkii kun jeer baan soo dhaweynaynaa insha Allah bidnil kariim dadku waa helo waxa weeyaan inta tan hadeer in la isu sheegayo maaha waxaan sheeleeyahay isbada dhibta waxay tahay jidda inta la soo maaragtay la soo magacaabo oo maaragtay laga soo shaqeeyaa gadaal looga haraa halala shaqeeyo insha Allah garaadka halala shaqeeyo kulli rag baa soo waday hawshatan wayna ku mahadsan yihiin ka qayb qaadateen way ku mahadsan yihiin waa wax loo baahnaayo maanta maaragtay wixii soo kordhay waa wanaag iyo khayr bayno soo kordhaa waana ku faraxsanahay aad iyo aad baan idin mahadcelinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaarta meesha isugu timi oo nooc walba leh oo ugu horeeyo garaadka caasimada noo fidiyey garaad Saciid Cabdulla Faarax iyo isimada kale ee la fadhiya iyo dhammaan inta uqaashay ganacsatada iyo siyaasiyiin iyo dhalinyaro iyo culimo intaba leh mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xiga waa maamuus mahadnaq uun baanu istaagnay hadalka ma furna waxaan leenahay shukran waxa waaye limacsuumikum asmaada aad noo fidiseen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan u aragnaa tashriif waxaan u aragnaa karaamo waxaan u aragnaa ehelnimo waxaan u aragnaa ogaal iyo xusuus ama xusid baan u aragnaa runtii maaha cuntada meel walba waa laga cunayaa waa ina taala laakiin tashriifka iyo takriimka lagu karaamayo waxay ku fadhidaa qiimo weyn aad iyo aad baanu mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadcelinaynaa aqribada iyo ehelka iyo odayaasha dhammaantood garaadka macnaha jaanibkiisa ah ee hawshan kala shaqaynayay iyo garaadkaba mar labaad iyo mar saddexaad waa ka mahadcelinaynaa wixii kale oo runtii anu raggii markii horena hadda caanashubka ka qayb qaatay baan ahaa oo halka yimi oo hadalkaygii dee caanashubka un baan ka iri haddana waxa weeye waxaan leeyahay insha allahu garaadka waan garanayay anigu dee caanashubka ka hor baan garanayay oo aanu meelo badan isku mudannay sidaan horey baa u sheegay runtii waa nin wanaag iyo khayr aan ku tuhmayo iyo inuu ka shaqayn karo wax dadka anfaca oo ay ugu horeyso midnimadeeda iyo ururinteeda iyo taladeeda oo la toosiyo annaguna intaasaan maaragtay uguna hambalyaynaynaa tanna waa uga mahadcelinaynaa tan uu sheegay caaqilkii iga horreeyey Saciidna dee horey baan u sheegnayo raggii baa xoogaa waagiisii u hatateelayoo sidii la rabay iyo muggii la rabay walow aanu nimi kuma aanaan iman marka dee waa horeyna waa loo sheego eldaajuhuna waa sheegay caaqilkiina waa sheegay waxaa la yidhi marka hawshayeedii intii marka naga nuqsaantay xaggaanu ku qabsanayn arrintaa waa isku raacsannahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo isugu keenay xafladda tan wanaagsan oo qiimaha iyo quruxda leh baynu mahad u celinaynaa tan labaadna waxaan u celinaynaa ummaddii ka soo shaqaysay raggii ka soo shaqeeyey oo gogashaan dhigay oo maaragtaa ilaahay dankiisa dadka isugu yeeray oo xafladdan dhigay baan mahadda labaad u celinaynaa intaan markaan ka gudbo garaadka iyo raggiisa waxay sameeyeen qado tashriif bay sameeyeen waxaan leenahay ilaahay ha u abaalgudo ajarkeeda ha u cesho iyo wanaaggeeda intaan markaan ka gudbo garaadka haddee waa soo dhowow baan leenahay habeenkii horena waa nidhi garaad waxaan leenahay soo dhowow
halkan waxa fadhiya annagu dadakan hartiga waxaanu daarood baan ugu weynaa maanta wax ma harin beeldaajina waa ka dhinacaaga fadhiya nimana kan magaca kan sheegto hadda Saleemana sheegtana annaga u weyn maanta waa hirgashay insha Allah ta'ala maqbuulo weeye wixii dhinaa maanta ay dhamaadeen hawshaas insha Allah waa maqbuul waxaan leenahay maqbuul Allah ka dhigo aniga garaadku si gaar ah saaxiibkay weey wax gaar aanu ahayn haatan hadda wixii baa sii cuslaadayo inkastoo hadda garaadkii talaabayga qaaday iga tagay ma sha Allah waa daba joog baanay waa la shaqeynaya waxaan leenahay garaad soo dhawow 114 quraanka soo dhawow aad iyo aad baan u mahad celinaa kuugu mahad celinaynaa wixii kale odayaasha sheegayo inkastoo ay halkan ka budhaatay oo haatan khayrkiiba meesha isugu yimi annagana waxa weeyaan waxaanu awil celinaynaa haddii maalmihii hore wax la dareemay waxaadii kale insha Allah boosaasaan ku dhamaynaynaa aynu isugu iman doonaa haddii alla yari dhulkana waad soo maraysaa armaanu kugu casumaynaa markaas soo socoto haddii alla yari boosaasaan kugu casumaynaa insha Allah iyo raggaagaba waxaan leenahay garaad soo dhawaada iyo inta ehelkaaba soo jawleme waa kan iyo dhamaan Axmed iyo Khaliif odayaasha dhamaan Cali inta aan garanayo iyo ehelkaba waanu idin mahad celinaynaa waa idin salaanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا هلكن isugu timi oo nooc kasta leh isimada ugu horeeyo garaadka Saciid Abdullaahi Faarax beeldaajaha iyo ummadda inteeda kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka xoogaa waa layga badiyaa magacyadooda oo sida shuxul oo kale ragga wayga badiyaa anigu si guud baan u salaamay salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa Allah awoodda leh sheegtayna in loo mahad celiyo waxaan mar labaad u mahad celinayaa xafladan dadka soo diyaariyay oo khiyaarta ah dadkaana isugu yeeray xafladan quruxda badan iyo meeshan quruxda badan laakiin waxa laga saqariyay geed hoostiis baa la isugu tagi jiray geedka hoostiisa maanta aynu joognaa soo barwaaqo ah ubax badan iyo beer badan iyo geedo badan ku yaaleen waxaan ma soo xasuusanay miyiga iyo geedka la sheegay kii baynu joognaa ma sha Allah baan leeyahay garaadka waa soo dhaweynaynaa waxaan ka hormarinayaa dadka soo xulay oo wanaag uu leeyahay ku soo xulay oo maskax iyo wax walba geliyay waxay ila tahay inaysan ku noqosho lahayn waxaan kaloon maqashoonahay Abdullaahi Faarax inuu ahaa Abdullaahi Faarax inuu ahaa nin bulshada deegaanadan qaali ku ah taariikh badan leh dhul badanna laga yaqaano garaadkana waxaanu ka filaynaa intii iyo ka sii fiican baynu noqdo sababtoo ah waagaas waayo hore ahayd dadkuna nooc buu ahaa laakiin maanta casriyad iyo dawlado iyo siyaasad waxba yimi waxaan kaloo garaadka ugu ducaynaa insha Allah dadku isma badan baa la doortay in la yiraahdo war garaadka war hebel noo geeya oo cadaalad iyo wanaag iyo wax wanaagsan lagu tiriyo oo loogu soo hirto oo magaciisa la soo haybiyo war inoo geeya war garaad Saciid inoo geeya Abdulle ilaahay saasaanu ka baryaynaa sababtoo garaadda badan ama isma badan oo la doortay baa jira faalayn maayo laakiin kii wanaag lagu soo raaco Allah ka dhigo saas baan leenahay hadallada intii hore odayaashii iga horeeyay baa dhameeyay hal shay baanu ka cudur daaranaynaa oo raggii hore sheegay laakiin taakiid ahaan waa ku darayaana waxay tahay على مساركي وسيدي اللي ربي أنا نقص وغيب قليل ولو برك نجيم جواب تدي ولا بحي بلداجها نقول ري جامعة خجي كذا ودي عشان والله راعين وحنقول نقطة بوا تأكيد وحلي بالي رجال أو شيء هذا قرارك كش مارك يا واجه أنت صاب للسماء يقفل ولا المجرى حرق الجحره مركز رجال دردارن كي ورواي حجة إلا واحد كلمة جرى هذيك الوضع يعني marka sidii oo kale toban ugu celcelinayna
insha allahu taas baanu samaynaynaa haddii ilaahidmo sida la yidhi mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waa idiin mahad celinaynaa intaasaan warkayga ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan shiriyo dhowrtada ah oo meeshii baadiyaha shiriyo dhowrto waxaan ragga intii badan waa soo gaadhay shiriyo dhowrto walana waa jidhaa marka shirakanu shir barakaysan Allah ka dhigo raggu ninka la yiraahdo khaliif wuxuu yiri laba ayeeyo anigu dhammaan mar hadii saleebaano waa abtiyaal aad u baahantii war hadal baata xafladda qiimaha badan koror baan helayo maanta cali saleebaan xogaa kor baan uga kacayo hadii saleebaano meesha majaratiga ay yihiin aad baan iga mahad celinaynaa waana ku faraxsanahay munaasabadan oo kale inaan markasta isugu nimaadno ilaahay subxaanahu wa ta'ala garaadka ha barakayo garaadku ana shub maahe waa caleema saar waa nin dhaqan ka soo jeeda hadda ka hor baan ciise maxamed ciise waa garanaysaa suu nabadoon noogu ahaa oo aanu isla soconay buu suldaan noqday marka maalinta si gaar aan ugu shubnay qolada iyadii cuqaasha ahayd ninka la yiraahdo Siciidna hadda kor buu u kacayo mar hadduu dhaqanna waa ka soo jeeday marka waa lagu shaqeynayaa Siciidow cuqaasha ummaddu waa kula shaqeynaysaa insha Allah dhammaan waxaan urug ilaahay idinka garab baan ku siinaynaa isimadiina hadda ka mid baan noqotay waxa laga rabaa insha Allah shaqadii inaad intii aad horay u haysay inaad guddoonkaagii iyo ilaahay idinka ducadaadii oo aad raggii kale wax ku qabsan oo nabadoonadii shaqadii u dindho insha Allah ta'ala guddoonkiina aad u fariisato insha Allah iyo ducadaada waxyaalaha hadda aan u baahanahayna waxay tahay gariyo guddoon inay wadanka ka shaqeeyaan si loo helo qolo kasti shaqadeedii iyo nidaamkeedii iyo kala damayntii aanu lahaan jiray si loo helo insha Allah waxaan markaa hadalkayga ku soo khulaasaynayaa munaasabadana maanta waxay iska ahayd munaasabad soo dhaweyna oo aan ku soo dhaweynayno martidii anigu indhaweyto waa joogay garow waan joogay soo dhaweyntan kamid ah insha Allah ta'ala marka soo dhawaada dhammaanna in la wada shaqeeyo oo sida tan oo kale munaasabada kan laga dardaarmo oo gobolladeena iyo degmooyinkeena iyo dadkeena wixii ku jira iyo wixii aan ilaahidankii aan shaqadeena inaan qabanno waxaan runtii ku faraxsanahay sida tan oo kale in aan ugu mahad celinno garaadka iyo raggiisa munaasabadatan waa munaasabad runtii duco iyo dardaarana marka intaasaan anu ku soo koobaya waan ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waana ka cudur daaranayo maalintii dhaweyd anigu safar baan soo ahaa hawadan ku soo jiray marka maanta waa taasoo waa caleema saaran tahay insha Allah ta'ala haddii bari la aadana abtiyaashay waa ka sii xoojinaynaayo bari bay noqon doontaa insha Allah ummadii bari insha Allah waa ku dhabaad doontaa meeshaas biidmillaahi alkariim dhammaantay waxaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno munaasabad weyn lagu dhigo dadkii iyo deegaankii aad soo aragto lana soo dardaaranto una soo ducayso intaasaan insha Allah ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka arintaas insha Allah mabruuk karaamada majlisadan haduu ku shaabadan doonaa aad kaga horeyn doontaa ismada kale asmada tan waxa u maray waa tii labaad oo dibadda ka yimaada loo sameeyo gudaha maaqan jaanis labaad cali masaare way marka alxamdulillaah rabbil caalamiin qadadana waa kaaga mahadnaqaynaa insha Allah waxaan qadaynaynaa in ilaahay kugu baarigo xilka kan reerku ku dhiibtay assalaamu calaykum waraxmatullaah bismillaahir rahmaanir rahiim beeldaajaha hogaaska nabadoonnada waxgaradka samadoonnada aqoon-yahanka iyo saxaafadda dhammaan inta meesha fadhida waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdal salaan anugu hadal badan isuma taagin waa u mahad celinayaa walaalaheen inoo mahad celiyey oo aan isleeyahay dee haddeer wax weyn
wax ka weyn ba istaahileen haddeer maaragtay laakiin waa inoo mahadceliyeen annaguna waa u mahadcelinaynaa ducadii ay noo duceeyeen iyo maaragtay khayrka ay maanta dhan noo ishaarayeenna waxaan leenahay aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa ilaahayna ha inoo qaado de warka inaan soo xiro soona maaragtay maxaan ku idhaahdaa gabagabeeyo oo maaragtaa weeye bay ahayd baan u malaynayaa shirkana inoo xiro inoona duceeyo marka iyo mahadcelintaas unbay ahayd inaad maaragtay magaalada un joogteenoo aynu maalin iska wada qadayno bay awalba ahayd wax intaas dheer ma ahayn marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin sharkii allah ina ka xiro khayrkii allah inoo furo dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidkeenna allaha dhaafo wixii buka allaha caafimaadiyo inta caafimaadka qabtana allah u siyaasho allahuma salli calaa maxamed qof walba meeshuu ka dhiban yahay allah ka faydo ilaah idankiis muslimka allah kor ha u qaado allahuma salli calaa maxamed abaarta allah ina ka fogeey ilaahay naq degdega hayna sii barwaaqo allah hayna sii midaan waxba ina yeelin waayadan dambe roob waxayna yaalahbaa marmar imaade ilaah idankiis midaan waxba ina yeelin oo khayr leh baa ilaahay ka baryaynaa oo dhaqsa leh midaan ku liibaannaa ilaahay ka baryaynaa allahuma salli calaa maxamed intaan iyo intii dhashana allaha xoreeyo qof walbana meeshu ka yimi nabad allah ku cesho intuu joogan nabad allaha siiyo amuuraha u socoteen oo nin walba xaajada u socdayna ilaahay fududeey ilaahay ha fududeey allahuma salli calaa maxamed faatax Barwaaqada